ayay waxay sheegtay in uu yahay nin aad u been badan khiyaanoole ah familkana aad u dhibo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقائقة ولكن زيو إذن الله أنا وعافمات قوات دمانتي وحيدنا رجينا إنا عافمات قبطان سؤال الدواء ومركل فيديو عصب فيديو كان أيامانتو حيدين كوه هاي قصة سؤامد هل كان كرد عضي شكل ما أنت أيدين هايو أي وحي التهاينين حس كيسا عرورتي سأودلي ريو أو رياضي أو جيدا sababtaas aan waxaan ku ogaa doonaa fiidiyogan soo qaadashahayga isu dhawo hada hore ila joogtay waa ku maasantahay daawashada fiidiyogan haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawo channelkuna waa channelkaaga subscribe dheh furo gambaleelka si uu ku dhaafin wax walba oo ziyo soo dhigto ninkaas magaciisa ma aan soo qaado doono ee waxa aan ku samid doona ama aan dhihi doona علي وانين او دشاي dalkan Masar da ahaantiisana waa 48 sano wuxuu guursaday 35 sano asigoo jiro 13 sano ayuu gurigiisa u dhisnaa 13 kaas sano intii lagu guda jiray dhowr mar ee isku dhicin xaaskiisa ayay waxay sheegtay in uu yahay nin aad u been badan khiyaanoole ah familkana aad u dhibo xaaska ay waxa ilaahay ka sii 3 caruura 2 wiil iyo gabar taas waxba ma ayso u arkinbo mushakil walba oo ku yimaado way xal jirtay wayna ka gudbi jirtay laakiin badana markii ay waalidiinteeda hooyadeeda ama familkeeda ay la wadaagayso ayay waxay ahayd mid ayad wax tabanayso marna علي موسم أهن مت جبرنا واحد كتبضو عم يدهو يعني أيضا بو ما أنت دجالك نبكس أيضا سمسي إن ما أنت وحيد دعي أيضا كدم بسلا مرة والبق مشاكل إماض وحقها لين أسيجا وحلا كتبضو اسكو صوت ضد جبي أهان معلم ما كم ده ربنا كي أنصار رافنا اللي بيتوبن كيسة هبين نمو نينكي أسيجو جيف أيوحو كريوضي ناكتيسة أو قيانة صو kadibna ku qiyaanayso nin saaxiibkiisa isla reeyada dhaxdeeda sida asiga warbaahinta oo ugu sheegay markii la xiray ayuu wuxuu leeyahay waxa guriga yimid nin saaxiibkay waxaan albaabka ka furay wiilkeyga dhaxe kan weynkan ku xigo kadibna adiga waxyaabo oo farxmo badan ayuu meeshii ka sheegay saaxiibkay wuu baxay waa u dhakaday wuxuu leeyahay waa ka war doonay maalintii labaad waa ay dhacday isla arintii wili waa la hurdaa haddana maalintii saddexaad ninkan intuu oo ku dhex jirabo dambi baaristiisa iyo arimaha inuu soo ogaado wili waa nin sii jiifo wuxuu wacay wiilkiisa wuxuuna ku yiri ninkan saaxiibkay ane adeerka oo markas dhahdo adeer guri horta marka aniga ma qanaa muxuu ka soo doonaa marka albaabka ka furtidna muxuu qabtaa isla wiilkii ayaa wuxuu ugu yiri kula hooyo u yimaada adna waa saaxiibka hooyana waa saaxiibkeed ninkii markuu hurdada ka soo kacay ay arintu waxay la noqotay wax runa asoo idata taagay yani hadda xaaskii iyo caruurtii waxba faahfaahin ma ka bixi karaan arintaas waayo waa dad tagay asiga laakiin markii la wareystay oo sababta u dishay maxay tahay reerkaaga oo dhan u baabi'isay markii la dhahay inta uu sheego waa intaan wuxuu yiri mar ala marka hurdada ka soo kacay ayaan waxaan u soo kacay oo dhahay kii albaabka furaayay iyo hooyadiisu is ag fadhiyaan أنا وحول ده وحول ده أسكسي دقي وركي أسي دقي استوحان سلو هاي أكيد يا وقرشها اسمينوين ومالا ورمضان ومدة وإسكا سحور سمي صنايان وإسكا باشالا هويوين وأركتين مركي أو أفرام حيلين وصوص عنينا أنا حوغا هبا وباهن هاي دكار وارد نوت وقو هايبو أو عيل ميلو دقويسن وجيسي كفهنتي من دا مركز وحي يوتري محاقو دعي ويري مركز وحي وحي آسميسي وإس أبتهي هاي والسكو يمت من لا وحي استري ومالمهيسي حماية وكعصنتي شبكة له هدي أولهد نكان إن أو نورش رافنايو كل ما إسسي جوبتيني أصلا أنا وملايو لكن وحول بوا قدر سوماهن قدرتها مركز تشقيسو عليك وحاسة ما يسمى مركي وحبو ما يسوق قادم قبل وإسكا تكتي ويلكي وإنه كوجوا ما أنتو مركز وحوري أب محكور عاي أصيغنا وحوري وريا إسقطة وحاسة ما يسي معلم صاحبك الباب كفري ميا تيني ما قبتها ويري صاحبك الباب وكفري محاسة كهدلو ساب ويلكي وحوري أصو يقول إنكرايو أن من ديكو هالماميبو وحو أدلي سبين آدن كبح
حسبي الله ونعم الوكيل ويلكي والأقون سواي مركود أو لنتكدب أو سيمت جراعي habartii iyo gabadhii wiilkii kale mid guriga way ka maqayno waa isku labadooda okay hadduu dilim xusmay ilaan guriga wada dhiig hooyada haday imaado way sasay maxaa meeshan ka jiray leedahay way meesha ka carrey ama hadduu wiilka kale soo hormaro wuxuu isiri ninka mindiya ku dishay dadkan laakiin say way ka xoog badin saddex qofoodna waay hal mar ay guriga isku imaadona waa ina qorshe kale keentaa marka ninkan shaydaana markaas la shaqeynooyo ilaa qorshe walba shaydaana loo soo dejinayay shaydaanku waa mid aad u dhib badan xiliyada ay xanaaqsan tahay cudubilayso kadibna Allah subhanahu wa ta'ala u laabo laba rakcadna tuko ilaahay ayaa markaas qeyrka ku waafaji doonay haddii laakiinse nafsadaada aad dhageysatid waxay kuu sheegtay aad maqashid waxaa noqon doontaa mid khasaaro ilaahay khasaaro nooma keeno adiga hooyadii markay soo laabato waxay u timid guriga wada nadiif ah ilaa ninkaanay balaa ku shaqeysanaysay dhiigii oo tirtiray wixii dhan wiilku uu qariyay hooyadii markay guriga soo gashay wax qaldan dham ay fahmin laakiin ninkan wajigiisa way ka dareemaysaa ayada marka ma rabto mushaakil waxay isleedahay maxaa maanta jinniyada ku kacsan oo ninkan gafurka la taagaa kadib waxa dhacday kadib wuxuu sameeyay hooyada iyo gabadheeda isku imaadeen wiilkii weyn ayuu boojiyay because uusan u imaanin guriga horta mandhaawal uu ka xirtay furuun ku taagay teeda kale meel fog oo yacni uu saacado ku maqnaa karan wax uu ugu dirsaday soo asi sheegayo gabadhii qolkeed ayadoo ku jirto oo cabitaan inuu u geey oo waxyaabo yacni oo maanka dooriye ama ay ku suuxayso oo ugu daray ayada way yaabtay istiraaba wilgiisa wax ku ma keenay way adka kaftameen oo ka soo tagay naagtii u yimiday wiilkii jana noqday ayadana wuxuu u dilay si aad u foolxumo badan mindi ayuu ku dilay wuu soo laabtay gabadhii oo ayada suuxsan oo ayada inuu dul tayo mindi ku dilay saddexdooda hadduu oo dil lahaayo kii kale waaba banaanka ku maqayahay wuu la sii sugay caruurtiisa ayuu wuxuu iskaaga leenayaa mid waa kii uu ku riyooday inuu albaabka furaayay labadii kalena wuxuu isleeyahay waxbay arrintan ka ogyihiin maxay kuula socodsii waayeen ku dhiiwaayeen hooyo aabba hooyo way ku qayaantaa habartii iyo wiilkii iyo gabadhii bartii oo marka uu ugu tilaabsaday wiilka weyn adeegna uu ku maqan yahay baashaalkiisna uu iskaagsii maqan yahay wuxuu isiri hadda waqtigiyaa la joogaa oo suxuuro la heedayna gurigii ku laabo uu yimid mar alla markuu yimid tookadaanay dilka oo farbadiyahay hooyo dilay gabaruu dilay waxba ma uusan hagaajinay wiilkii albaabka uu dhakaday asoo mindidiisna heesto wuuna la socday in uu soo guriga ku soo socdo mindidii oo surka ka galay wiilkiina horena albaabka uu soo xirtay ninkan dadka familkiisa markuu leenayo ma ahan mid cabsanayo haddana ma ahan mid inuu baxsado rabo wuxuu cadeen u heestaabo islaantan in ay saaxiibkiisa ku qiyaaneysay يعني وارد أدو عريسانو هدي حتى لهو يعني وحو إسليهي وحا إسكو فردام سيدا هي ستا تلا هدي كو عداتي فملكي دكم وقدي لولكو قدري أسكريسا ماشي سو تاين ولي وحو كسي همي ديري هاي ساحيب كيسا حاس كيسكو قيانيسي inuu u soo dhameeyo nasiib daro maba ahanba mid wadanka maalmahaas iyo maalmo u dhow joogaybo oo wadanku wuxuu ka maqan yahay 3 bilood wuxuu aad dalka Sacuudiya mar alla markuu arintii ogaaday ayuu wuxuu yiri anaaba arkay indheega ku arkay wuu joogaa baaris badan la sameeyay ayaa waxa la ogaaday rabadaanta intuu soo galin 3 bilood ka horbo in uu Sacuudiga ninkaas aaday soo iskaaga soo cimreysto iskaaga soo xijiyo bacda xaj lo oo wadanka inuu ku soo laabto waaga ku cadaaday arintii waxa cadaatay inuu riyoonayo sheekadan ayaa isla maalintaas oo dhan waxay ahayd mid media heesato ninkeena ilaa ay hadda uu xiran yahay reerkiisana uu waayay ma ahan mid u soo laabanayaan hadii xataa asiga loo dilo xataa ma u soo laabanayaan قصدان أيا وحي إتا قصة آد أما كاك أوله سومالين وحي دهدا هبسيما هالبالا سيستا هادو مركو سوقع وح اسكا هبسلا هاي انتو او نفتي سلا شاكي سلا هاي او شيدان مقلي لهاي وحانو دم دعي لهن
caruurtiisa quruxda badan ma us iska leeyleen xaaskiisana ma uusan weylehen laakiinse sheedaana wuxuu ku yiri samee ha waa run waxa aragti waa run haddana shalay ayuu ka taagan yahay inkastoo aan dhahno shalay waa shay xaraan ma wanaagsano sheekadan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa waa qiso aad u xanuun badan oo lala yaabo nin riyoonayo haddana dad iska leenayo adduunkan ayuu wuxuu yahay maalin ka dambayso waxa arkaysaa wax aad la yaabto hadda ilaa intaan soo gaartay waa ku mahadsan tahay haddaa jeceshahay in aad qiso ila wadaagto Instagram-kayga igula soo wadaag haddaa hore ila joogtay oo ku mahadsan tahay daawashada videogan haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawow channelku waa channelkaaga subscribe dheh furo gambaleelka si uu ku dhaafin wax walbo aniga aan soo dhigo waa walaasha Zio ku leh is xisaabi inta aan la xisaabinin ka hor